wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland waxay ka mid tahay 20 wasaaradood ee u adeega bulshada ku nool deegaanada Puntland. waxaa la aasaasay 7 sano kadib ururshadii Puntland sanadku markuu ahaa 2005. ujeedka ugu weyn ee loo aasaasay ayaa ah in wasaaraddu dib u soo celiso dhammaan xuquuqaha maqan ee ay leeyihiin haweenku, waana codka kaliya ee si buuxda ugu qareema guud ahaan bulshada inteeda nugul, gaar ahaan haweenka iyo carruurta. haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa guulihii iyo weliba shaqooyinkii ay wasaaraddu u qabatay bulshadeeda sanadkii tegay ee 2018. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland waxa ay markii ugu horeysay daahfurtay buugga qorshe siyaasadeedka waxqabadka carruurta Puntland oo ah qorshe qeexaya dhammaan xuquuqaha waxbarasho, caafimaad iyo daryeel ee ay leeyihiin carruurtu. qorshahan waxaa soo diyaarisay isla markaana qoristiisa iyo isku dubaridkiisaba lahayd wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah ee badbaadinta carruurta Save the Children. buug wasaaradda la soo tacaalaysay iyagii Save the Children sanadka markuu ahaa 2015, laakiin ilaahay nagu guuleeyay inaan si degdeg ah u dhammaystirno annagoo la kaashanayna hay'addii maalgelisay Save the Children, isla mar ahaantaana ka dhigayna siyaasad hadduu ilaahay idmayo golaha aan marsiinay si aqlabiyada gacanta loogu taagay, maadaama waxa laga hadlayo ay yihiin arrinta carruurta noloshooda. munaasabadan lagu daafurayay qorshe siyaasadeedka waxqabadka carruurta Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay marwada madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Hodan Siciid, wasiirka ka socday xukuumadda Puntland iyo weliba saraakiil ka socday hay'adaha bahwadaagta la ah wasaaradda haweenka oo ay ka mid ahaayeen Save the Children iyo UNICEF. sidoo kale waxaan iyana madasha ka maqnayn arday ka kala socday dugsiyada hoose iyo dhexe ee ku yaala magaalada Garowe. wasaaradda haweenka Puntland waxa ay dhamaystirtay siyaasadda awoodsiinta haweenweynaha Puntland. siyaasaddan ayaa xoogga saaraysa horumarinta haweenka ee dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, siyaasadda iyo shaqooyinka, taas oo hadda u diyaarsan in la horgeeyo shirka golaha xukuumadda si golahu u falanqeeyo. wasaaraddu si loo awoodsiiyo haweenka waxa ay kulamo, tababaro iyo xog isweydaarsiyo looga hadlayay doorka ay haweenku ku yeelan karaan siyaasadda ka qabatay dhammaan deegaanada Puntland. kadib markii ay wasaaradda haweenku u kuurgashay qiimeyn badanna ay ku samaysay dhibaatooyinka bulsho, caafimaad iyo taran ee u geysto gudniinka gabdhuhu, waxa ay iyada oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland dadaal badan ku bixisay dhamaystirka xeerka joojinta gudniinka gabdhaha. xeerkan waxa uu qeexayaa in aysan bannaanayn googoynta xubinta taranka ee gabdhaha yaryar. sidoo kale waxa uu caddaynayaa ciqaabta uu mutaysanayo qofkii ku kaca falkan. wasaaradda haweenku si ay u daboosho baahiyaha carruurta tahriibayaasha ah oo sanadadii dambe aad ugu soo batay geyiga Soomaalida gaar ahaan Puntland, ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwo Maryan Axmed Cali waxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku daafurtay mashruuca carruurta socotada ah oo loogu talagalay joojinta iyo badbaadinta carruurta ku halaagsamaya tahriibta iyo carruurta ay kala lumaan qoysaskooda xilliyada abaaraha iyo colaadaha. waxaana xarumahan laga hirgeliyay magaalooyinka kala ah Boosaaso, Boocame, Buuhoodle iyo Gaalkacyo, waxaana ka faa'iidaystay mashruucan 1200 oo carruur ah. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNICEF waxa ay magaalada Garowe ka furtay xarumo 3 ah oo loogu talagalay in dhaqan celin, waxbarasho iyo daryeel caafimaad oo buuxa loogu sameeyo carruurta iyo dhalinyarada ayagoo aan gaarin da'dii loogu talagalay ku biira askarta amaba ku nool goobaha ay degan yihiin askartaasi. carruurtan oo laga soo kala ururiyo dhammaan gobolada Puntland ayaa marka la keeno xarumahaas kadib waxa ay wax weyn iska bedeshaan noloshooda.
wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska oo kaashanaysa hay'adda Care International ayaa si wadajir ah xariga uga jaray mashruuca ku saabsan sidii loo heli lahaa bulsho siman oo ka wada faa'iidaysata kheyraadka dalka, waxaana mashruucani si gaar ah diiradda loogu saarayaa sidii dumarka loo siin lahaa fursad ay kaga qaybgeli karaan horumarka dalkooda dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda. mashruucan ayaa socon doona muddo 18 bilood ah, waxaana laga fulin doonaa degmooyinka Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo. wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Marwo Maryan Axmed Cali waxa ay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku daafurtay mashruuca Isnaab oo ay si wadajir ah u fuliyaan wasaaradda haweenka ee dowladda Puntland, hay'adda Save the Children iyo ururka Tag Foundation. mashruucan waxa uu ka shaqeeyaa ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo kobcinta xirfadaha haweenka, waxaana laga fuliyaa degmooyinka kala ah Gaalkacyo, Bursaalax iyo Galdogob oo dhammaantood hoos yimaada gobolka Mudug. si bulshada loogu baraarujiyo xuquuqda carruurta, waxay wasaaradda haweenka oo kaashanaysa hay'adda Save the Children ka fulisay mashruuc ka shaqeynaya daryeelka carruurta iyo ilaalinta xuquuqdooda, iyada oo lagu tababaray waalidiinta, macallimiinta, ardayda iskuulada iyo jaamacadaha iyo ururada bulshada qaabka ugu wanaagsan ee loo daryeeli karo carruurta loona ilaalin karo xuquuqdooda. mashruucan ayaa waxa uu ka socdaa gobolada kala ah Nugaal, Karkaar iyo Mudug. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland oo gacan ka helaysa hay'adaha UNFPA, UNICEF, Care International iyo Save the Children ayaa dhammaan deegaanada Puntland ka bilowday ololayaal isugu jira wacyigelino iyo tababaro iyo weliba u qareemid lagu yareynayo gudniinka gabdhaha. kadib markii wasaaradda haweenku heshay xogta ku saabsan tacadiyada loo geysta haweenka iyo gabdhaha, waxa ay taabagelisay mashruuca ka hortagga iyo ka jawaabista tacadiyada ka dhanka ah jinsiga. mashruucan ayaa xoogga saaraya caawinta haweenka iyo gabdhaha loo geystay kufsiga, kaas oo ah xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo dhaawac weyn soo gaarsiiya sharafta, caafimaadka iyo maskaxda dhibanayaasha. wasaaradda haweenka oo ka duuleysa helidda qoondada saxda ah ee haweenku ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda heer qaran iyo mid deegaan ayaa bilowday mashruuca awoodsiinta haweenka ee Puntland. mashruucan waxa uu qayb ka qaatay in haweenku helaan wacyigelino iyo tababaro ku saabsan iskaashiga haweenka iyo qaabka haweenku ay uga qaybgali lahaayeen siyaasadda dalka. mashruucani waxa uu suurageliyay in haweenka Puntland ay helaan 28% qoondada baarlamaanka u matasha Puntland, sidoo kalena gabdhuhu ka soo dhex muuqdaan golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Puntland. kadib markii wasaaraddu heshay xogta ku saabsan tacadiyada loo geystay jinsiga, waxa ay taabagelisay xafiis cusub oo la talinayo tiiraanya bixin loogu sameynayo dadka la kulma dhibaatooyinka ay ka mid yihiin kufsigu oo inta badan saameyn togan ku yeesha caafimaadka, nafsiyeed iyo bulsho ahaaneed ee dhibanayaasha la kulmay tacadiga. xafiiskan ayaa sidoo kale u sameeya dhibanayaasha u qareemid dhinacyada sharciga, caafimaadka iyo amniga. wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland Marwo Maryan Axmed Cali iyo madaxa ugu sarreeya hay'adda UNFPA xafiiskeeda Soomaaliya iyo weliba madaxii hore ee xafiiska Puntland ee isla hay'addaas ayaa si rasmi ah xariga uga wada jaray nidaamka maareynta macluumaadka ku saleysan tacadiga ka dhanka ah jinsiga GBV Information Management System. nidaamkan ayaa awood u siinaya wasaaradda in ay si wax ku ool ah oo ammaan ah ugu kaydiso xogta ay soo sheegaan dadka la kulma tacadiga ka dhanka ah jinsiga. wasaaradda oo ka duuleysa aragtida xukuumadda ee ku dhisan in adeegga bulshada la gaarsiiyo dhammaan deegaanada fog ee laamiga ka baxsan ayaa xarumo cusub ka daafurtay deegaanada kala ah Burtinle, Taleex, Dharkeengeeyo, Godob Jiiraan, Isku Shuban, Qandala, Bursaalax
iyo raka raaxo. xafiisyadan ayaa dhammaantood loo dhammaystiray qalabkii iyo agabkii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada deegaankooda, waxaana loo magacaabay shaqaale u taagan u adeegista bulshada inteeda nugul siiba haweenka iyo carruurta. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNFPA ayaa bilowday dhismaha hoy cusub oo dhowaan xariga laga jari doono, kaas oo tiiraanya bixin loogu sameyn doono dhibanayaasha la kulma tacadiyada ay ka mid ka yihiin kufsigu. waxaana dhibanayaashaas laga caawin doonaa sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadii loo geystay. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey iyo wasiirka wasaaradda haweenka Marwo Maryan Axmed Cali ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha gurigan oo haatan maraya marxaladii ugu dambeysay ee gabagabada ahayd. maadaama tacadigu yahay mid wiiqa caafimaadka, sharafta, amniga iyo madax bannaanida dadka la kulmay kufsiga, ayaa wasaaradda oo ka duulaysa qorshaheeda ilaalinta sharafta maqaamka gabdhaha iyo inay wax ka qabato dhibaatooyinka kufsiga loo geysta haweenka iyo gabdhaha, waxay sanadkan daafurtay 6 xarumood oo lagu daryeelayo dadka la kulma tacadiga ka dhanka ah jinsiga, kuwaas oo bixin doona gargaar nafsaani bulsho, daaweyn iyo xirmooyin alaab ah oo loogu talagalay ka badbaadayaasha kufsiga. xarumahan ayaa wasaaraddu waxay ka hirgelisay degmooyinka kala ah: deegaanka Carmo ee gobolka Bari, deegaanka Dhahar ee gobolka Highland, deegaanka Baran ee gobolka Sanaag, deegaanka Qardho ee gobolka Karkaar, deegaanka Taleex ee gobolka Sool, iyo deegaanka Dharkeengeeye ee gobolka Sool. si loo helo dhalinyaro garanaysa u adeegida iyo caawimaadda bulshada inteeda nugulka ah, wasaaradda haweenku waxa ay qayb ka noqotay horumarinta manhaj cusub oo sare u qaadaya kobcinta aqoonta ardayda ka baxday dugsiyada sare, isla markaana u fududeynaya sidii ay ugu shaqayn lahaayeen bulshadooda. tallaabadan ayaa suuro gelisay in 100 dhalinyaro ah ay wasaaraddu siiso waxbarasho heer jaamacadeed ah oo weliba lacag la'aan ah, ayna ardaydu ku baranayaan cilmiga u adeegida arrimaha bulshada. ardaydu waxa ay waxbarashadooda ku qaadan doonaan jaamacadaha Bariga Afrika iyo BSU ee magaalada Garowe. xaalad nololeed oo qallafsan ayaa mar qura soo food saartay badi deegaanada Soomaalida sanadkii tagay ee 2018. abaaro isdaba joogay ayaa saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan qoys. wasaaradda haweenka oo ka duulaysa sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen gargaar aadannimo oo degdeg ah oo lagu gaarsiiyo goobahooda ayaa u qaybisay raashin, marakaneecooyin iyo saxamuunta carruurta lagu siiyo raashinka qoysas abaaruhu saameyn baan ku yeesheen oo degan deegaanada Dharkeengeeye iyo tuulooyinka hoos yimaada ee Dabataag iyo Dhumay. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda Shilcon waxa ay degmada Boocame ee gobolka Sool gaarsiisay agab macaawina ah oo loogu talagalay dadka ka soo barakacay colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanka Tukarraq. alaabtan oo ah mid ka caawinaysa barakacayaasha helitaanka biyo nadiif ah iyo weliba guud ahaan fayadhowrkooda ayaa waxa ay ka koobnayd 35 kartoon oo saabuun ah, maacuun dhammaystiran iyo weliba filterka biyaha lagu nadiifiyo oo tiro ahaan gaaraya 80 xabo. si loo helo baahiyaha dhabta ah ee haysta bulshada nugul ee abaaruhu iyo colaaduhu saameynta baan ku yeesheen, waxay wasaaraddu safarro ku kala bixisay degmooyinka isku shuban, Burtinle, Taleex, Dharkeengeeye, Godob Jiiraan, Bursaalax, Qandala. kadib markii ay wasaaraddu ogaatay baahiyaha joogtada ah ee bulshada deegaanadaas haysta, waxay wasaaraddu ka furtay xafiisyo cusub oo adeega u qareemidda dadka nugul siiba carruurta iyo haweenka. sidoo kale wasaaraddu waxay safarro u kurgelid, wacyigelinno iyo tababarro iskugu jira ku tagtay deegaanada Boosaaso, Gaalkacyo, Baran, Dhahar, Boocame, Xarfo, Bacaadweyn, Cagaaran, Qardho iyo Qandala. wasaaradda ayaa sidoo kale safarro ku tagtay caasimadaha wadamada Kenya iyo Ethiopia, halkaas oo ay wasaaraddu kaga qayb gashay kulamo lagu falanqeynayo horumarinta carruurta iyo haweenka geeska Afrika. wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Marwo Maryan Axmed Cali oo ka qayb gashay kulamadaasi ayaa ku soo bandhigtay magaalooyinkaasi Addis Ababa iyo Nairobi xaaladda haweenka iyo carruurta Puntland, iyadoona la isku raacay in la xoojiyo ka qaybgelinta haweenka ee siyaasadda geeska Afrika
iyo in si wada jir ah wax looga qabto tahriibta oo khatar nafeed iyo mid maalba ku haysa carruurta ku nool guud ahaan qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland waxa ay sanadkan markii 14aad u dabaaldegtay xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo sanad kasta la xuso 8 bisha Maarso. xuska maalintan ayaa qayb ka qaata dib u milicsiga xaaladda ay ku sugan yihiin haweenku iyo waliba horumarka ay ka sameeyeen dhinacyada kala duwan ee nolosha. sidoo kale waxaan iyana meesha ka maqnayn raadinta xuquuqaha maqan ee ay leeyihiin haweenku oo ay ugu horeeyaan u sinaanta waxbarashada iyo shaqooyinka ee gabdhaha iyo waliba in haweenka laga qayb geliyo siyaasadda dalka. warbixintii ka soo baxday shirkii dhaqaalaha adduunka ee 2017 ayaa tilmaamaysa in sinaanta ragga iyo dumarka dhanka fursadaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed xaqiijintooda aan sidii loo rabay loo gaareen 200 sano ee soo socota haddaan la xoojin horumarka haweenka. si bulshada reer Puntland u joojiyaan faldhaqameedka gudista gabdhaha, wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland waxay qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee ciribtirka gudniinka gabdhaha oo sanad kasta 6 bisha Febraayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo asteeyeen maalinka ciribtirka gudniinka gabdhaha. xuska maalinkan ayaa waxaa bulshada lagu wacyigeliyay sidii si buuxda loogu joojin lahaa ku dhaqanka dhammaanba noocyada kala duwan ee gudniinka gabdhaha si loo dhowro caafimaadka iyo cisiga gabdhaha iyo guud ahaanba badqabka dumarka reer Puntland. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoysku waxa ay u dabaaldegtay sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee carruurta Afrika oo sanad kasta la xuso 16 bisha Juun. Afrika qoriga dhig Afrika qoriga dhig Afrika qalinka qaado Afrika qalinka qaado Afrika nabadda yeel Afrika nabadda yeel alaad waa lagu dhintaa Afrika nabad Afrika nabad. maalintan ayaa ah maalin xoog la saaro wacyigelinta iyo horumarinta waxbarashada carruurta Afrika iyo waliba ilaalinta xuquuqahooda caafimaad, waxbarasho iyo amni. wasaaradda haweenka Puntland ayaa sanadkan qabatay xuska maalinka carruurta adduunka oo sanad walba la xuso 20 bisha November. ahmiyadda maalintan waa in carruurta adduunka loo bidhaamiyo dariiqa horumarka iyo sida ay door ugu yeelan karaan kobaca bulsho iyo qoys ee dalkooda. waxaana wasaaradda oo muujinaysa kaalinta muhiimka ah ee carruurta Puntland ay qabatay xafladan waxaana ka soo qayb galay carruurta iskuulada Garowe iyo wasiirada wasaaradda haweenka, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale oo ka kala socday hay'adaha iyo laamaha dawladda ee daneeya barbaarinta iyo daryeelidda carruurta Puntland. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland waxa ay sanadkan xustay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha da'yarta ah ee adduunka oo sanad kasta la xuso 11 bisha Oktoobar. munaasabadan oo ah mid lagu guubaabiyo gabdhaha da'yarta ah ayaa looga hadlaa sidii gabdhuhu u heli lahaayeen xuquuqahooda asaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka. waxaana sidoo kale maalintan lagu soo bandhigaa dhibaatooyinka gabdhaha da'yarta ah soo waajaha oo ay ka mid ka yihiin kufsiga, gudniinka iyo guurka degdega ah. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland waxay sanadkan daafurtay ololaha 16 maalmood ee ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka. ololahan oo socday muddo 16 maalmood ayaa ku jihaysnaa wacyigelinta bulshada ee ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka. waxaana kulamo isugu jira aqoon isweydaarsi, wacyigelino iyo tababaro laga qabtay dhammaan 9 gobol ee Puntland. wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoysku waxa ay tababaro isdaba joog ah u qabatay shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda haweenka ee ka howlgala dhammaan xafiisyada wasaaradda ee ku kala yaala gobolada Puntland oo dhan. tababaradaas ay qaateen shaqaaluhu ayaa ahaa kuwo kor loogu qaadayay aqoontooda iyo waliba xirfadahooda shaqo.